بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وناكسن صاحب يال هلكن وبرتا ورركا قodobada aan maanta idin hanana waxa kamid ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka hor yimid qarxii 14 Oktoobar in loogu yeero masiibo qaran banaanbax looga soo horjeedo booliiska Hirshabelle oo ka dhacay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulkaasi guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Taabid Cabdi oo shaaciyay balan ay ka baxday dowladda kadib qarxii 14 Oktoobar qodobadaas ayaad ku daawan doontaan u diyaar garooba warkii oo fidsan aynu ku bilownay Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo kamid ah siyaasiyiinta mucaaradka Soomaaliya ayaa ka hor yimid in qarxii Zoobe ka dhacay inuu ahaa masiibo qaran waxa uu sheegay in masiibo qaran ay tahay wax gacanta bini'aadamka ka baxsan sida dadka duufaanta dhulgariirka iyo wixii la mid ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in wixii ka dhacay isgooska Zoobe 2 sano ka hor ay ahaayeen xusuuq uu cadow u geystay shacabka Soomaaliyeed waxa uu sheegay in qarxa Zoobe uu reebay xusuus mahada ah oo dhaawacday dareenka shacabka tustayna cadowtinimada gacal iyo arxan la'aan diin iyo damiir la'aan ah banaanbax looga soo horjeedo booliiska maamulka Hirshabelle ayaa ka dhacay degmada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa maanta waxa ka dhacay banaanbax looga soo horjeedo ciidamada booliiska dowlad goboleedka Hirshabelle dadka dhigaya dibadbaxa oo isugu jiray caruur dhalinyaro haween ayaa isugu soo baxay bartamaha magaalada Jowhar iyagoona aad uga careysnaa xariga halkaasi loogu geystay in ka badan 700 oo ruux oo isugu jiray dhalinyaro iyo odayaal dhaqameed waa kuwaas oo loo soo qabqabtay howlgalay ciidamada ammaanku ka sameeyeen magaalada Jowhar sidoo kale dadka dibadbaxa dhigayay ayaa sheegay in ciidanka howlgalka sameeyay ay falal kala duwan kula kaceen odayaal ay ka soo bixiyeen iyaga oo ku jira masjid isla markaana ay ku xireen saldhigga ciidamada booliiska ee maamulka Hirshabelle oo ku leeyahay degmada Jowhar guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Taabid Cabdi ayaa shaaciyay balan ay ka baxday dowladda Soomaaliya kadib qarxii 14 Oktoobar guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana duqii Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa ka sheekeeyay xusuustiisa ku aadan qarxii xooganaa ee 14 Oktoobar maanta laga joogo muddo 2 sano ah ka dhacay magaalada Muqdisho Taabid Cabdi oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in aan sinaba loogu kabsan doonin dhacdadaasi oo si weyn u taabatay dadka Soomaaliyeed sidoo kale Taabid Cabdi oo xiligaas ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa tilmaamay in wali xusuusta gurmadkii loo fidiyay dadkii ku waxyeeloobay qaraxaasi iyo sida ay ugu midoobeen ummadda Soomaaliyeed waxa kale uu Taabid sheegay in laga gaabiyay in la fuliyo balanqaadyadii iyo talo soo jeedintii guddiga gurmad qaran si loogu diyaar garoobo ama loogu gaashaanto dhibaatooyinka noocan oo kale ah dareen weyn baa loo muujiyay ummadda Soomaaliyeed waxay diyaar u ahayd dawladooda in ay garab istaagto naf iyo maal hurba al-shabaab oo dhibkaasi weyn geystayna meel loogu soo wada jeesto balse ma aysan dhicin waxa loo baahnaa dad ku haga oo hogaamiya kuna horkaca si loo xaqiijiyo himladooda daawadayaal warkii habeenimo aad kala socoteen barta wararka waa naga inta ku xirnoo barteena subscribe na saar